inay ku dhawaaqdo inay samaysatay nuclear ama ay ka howlgalaysaba inoo bilow warbixintu maxay sheegaysaa ayadoo lagu dagaalgalay in Iiraan laga hor istaagayo in ay samaysto hub nuclear ayaa dowladda Mareykanka iyo Israa'iil waxa ay bilaabeen dagaalka hadda faraha la soo gubtay ee socda ee ka dhanka Iiraan waxayna isku haleynayeen in hay'adda faafreebta nuclearka ee qaramada midoobay ee IAEA in ay hore u sheegtay in Iiraan haysato 408 kilogram oo uranium tayagashan ah oo 60% ah marka laga gudbo in Iiraan ay mar walba ku adkeysan jirtay inayna raadinayeen inay hub nuclear samaysato kuna talo jirto oo kaliya in ay tayageliso barnaamijkeeda nuclearka ayadoo kale dano rayid ah ayaa hadda waxaa muuqda in dagaalkani uu bilowday waxyaabaha lala yaaban yahay ayaa ah 4 toddobaad ayaa dagaalkan iyo duqeyntan si isdaba joog u socota iyadoo militariga Mareykanka iyo Israa'iilna ay wadaan olole aynan ku guuleysan in ay awoodii ay Iiraan lahayd ay u hanqaltaagaysay ay burburiyaan hase ahaatee waxay siiyeen fursad ay ku heli karto Iiraan si ay jiritaankeeda u difaacdo hub ay ayada leedahay oo nuclear ah arrintaasna waxay dhabaha u xaaraysaa in wadamo badan in oo caalamka ka mid ah in ay ku degdegaan in ay samaystaan hub nuclear oo hubka nuclearka uu noqdo sidii tusbax go'ay waa gartay warbaahinta reer galbeedka maxamed qaar ka mid ah ayaa waxay wax ka qorayaan dhacdooyin horey u dhacay gaar ahaan Liibiya iyo Ciraaq oo kale oo la xiriira arrimaha nuclearka maxaa ka mid ah arrimahaasi warshadaha la yiraahdo Time ee ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin waray in qaar ka mid ah dalalka ay fariinta u akhrinayaan taariikhii ugu dambeeyay ee hadda dhacay mid ah in cid walba ay nafteeda badbaadiso waxaa la xusuustaa wixii uu mutaystay madaxweynihii hore ama hogaamiyihii hore ee wadanka Liibiya Muammar al-Gaddafi iyo madaxweynihii hore ee wadanka Ciraaq Saddam Hussein oo labadaba xukunka laga tuuray kadib markii si waalan loo duqeeyay barnaamijkooda nuclearka si gardarro ahna laga tuuray xukunka iyo iyadoo Ukraine ay hadda ka shalaayayso inay si ikhtiyaar hubkeeda nuclearka ah ee Itixaadka Soviyeetiga ka dhaxashay isla dhibto waxaa hadda soo xoogeysanaya kadib markii Trump uu ka baxay heshiiska nuclearka ee Iiraan lala gaaray 2018 in heshiisyada dowladda Mareykanka lala galaba inayna caga badan ku taagnayn oo maamulkii yimaada oo ka bixi karo axdigii hore loo galay Ramesh Thakur oo hore uga tirsanaa wadaxaajoodayaashii qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay dhanka Iiraan marka la fiiriyo hubka nuclearka hadda waxa weeye sida kaliya ay ku xaqiiqsan karto in xukuumadda Iiraan ay sii jirto maxay tahay sababta u diidaysa marka inay nuclear raadsato Jennifer Kavanagh oo ka tirsan xarunta mudnaanta difaaca ayaa asagana sharaxaya burburka kantaalada brustikada Iiraan iyo kaabayaashooda ayaa ka dhigaya hub nuclear sida ugu sahlan oo ugu dhaqsaha badan ee Iiraan ay ku cabsi gelin karto cadowgeeda xukuumadeedana ku qasbaya inay qaato tallaabo xagjirnimo waa garta marka arrintan ma dhici kartaa in wadamo kale ay ku dhiiradaan oo ay aaminaan in nuclearka uu yahay waxa kaliya ku badbaadi karaan si gaar ah Masar ama Turkiga oo kale dagaalkan Iiraan hadda lala galay xuduudka Iiraan kuma eka waxaad moodaa in uu sas weyn ku keenay dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda in dagaalkani uu qarxay oo damaanadii xagga amniga ee bariga dhexe in ay carqalad ku timid gobolka bariga dhexe dowladda Mareykanka waxay xoogga saaraysay
inay difaacdo xeryaheeda militariga. xulafadeeda ayaa hadda waxaa soo food saaray dhaqaalahooda inuu burburayo, waxayna dhalisay dalal kale oo ay Turkiga ka mid yihiin, lagana yaabay inay Masar ku jirto, in ay ka fekerayaan inay hub nukliyeera oo cabsigelina samaystaan. waxaad moodaa hubka nukliyeerka in cid walba ayaa hadda ku taamayso, sababahana waxay yihiin waxaa hadda socda oo Iiraan ku socda. cid rabta inay xaaladdaas ayaga ku dhacdo ma jirto. waa gartay. marka ma la oran karaa arrintaasi waxaa tusaale u ah Kuuriyada Waqooyi oo Kim Jong Un awoodiisa nuclearka foodi loo gelin ay yahay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in xaaladda hadda jirta ee waddankiisa uu nukliyeerka haysto ay muujinayso in ay tahay mid aan laga noqon karaynin hubka uu haysto. Kuuriyada Koonfureed ayaa hadda waxaa socda in shacabkeeda uu taageerayo in hub nukliyeer ay samaystaan, waxaana cod dadka laga qaaday ay muujinaysaa 76.2 inay taageerayaan. Japan oo saraakiisheeda ay ku baaqayaan in dood laga furo hubkii iyo mabaadi'dii nukliyeerka ay hore u diidanaayeen. xataa Taiwan oo hore loogu qasbay inay iska dayso barnaamij qarsoodi ah oo nukliyeer ah ayaa hadda ka baarandegaysa siday u soo noolaan lahayd barnaamijkaas. waxayna ogsoon tahay Taiwan haddii ay tallaabadaas qaado in Shiinaha ay diyaar u tahay inay marmarsiiyo ay ku qabsato jasiiradaasi ay heli doonto. waa gartay. xitaa Yurub waxaa leeyahay guux baa ka jira, gaar ahaan wadamada Poland iyo Jarmalka oo kale, oo ay suurtagal tahay iyaga qudhooda inay yiraahdaan aynu samaysano nuclear. marka la fiiriyo hanjabaadda joogtada ah ee madaxweynaha Mareykanka u jeedinayo xulafadiisa NATO, wadaxaajoodyo ayaa bilowday sidii xulafada NATO lagu difaaci lahaa, looga difaaci lahaa waddanka Ruushka oo dardar gelinaya weerarada uu ku wado Ukraine. waxayna dardar gelinaysaa in qaaradan Yurub duqda ah inay isku tashato siday nafteeda u difaaci lahayd. hadda waxaad moodaa inay miiska saaran yihiin in wadamada Faransiiska iyo Britain madaxyadooda nukliyeerka ah bariga qaaradda la geeyo si Yurub loogu difaaco. Jarmalka iyo Polandna waxay u hanqaltaagayaan hub ay ayaga leeyihiin inay samaystaan. xaaladdu waxay u muuqataa inay noqonayso tusbax go'ay. waa gartay. waaya siyaasadda marka Trump ee ku wajahan Iiraan maxaa laga yiri qobrada iyo dadka wariyaasha ama dadka wax qora maxay ka sheegeen? Fareed Zakaria ayaa waxa uu ku qoray wargeyska The Washington Post in siyaasadda Mareykanka ay jahawareer abuurtay, burburisana xeerarkii hore u jiray, oo waxa uu ku sheegay waxa socda inay yihiin masiibo. wuxuuna ku nuuxnuuxsaday qatarta Trump uu rabay in uu ku burburiyo goobaha korontada laga dhaliyo waddanka Iiraan haddii Iiraan ay furi weydo marinka Suez muddo 48 saacadood ah. hase ahaatee isla markii ayaa waxaa lagu qasbay inuu dib u gurasho ku sameeyo oo uu ku andacoodo inuu Iiraan wada xaajood la geliyo. Iiraanna arrintaas way beenaysay. Zakaria ayaa ku tilmaamaya siyaasaddii Mareykanka inay hadda isu beddeshay madadaalo telefishinka laga sii deynayo oo kale, wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in dowladda Mareykanka aynan joojin karaynin belada iyo fidnada ay bilowday. maxaa yeelay Iiraan ayaa hadda waxa ay ku codeynaysaa ama awooddeeda ku muujinaysaa dagaal oo Mareykanku rabo in la joojiyo, Iiraanna ay rabto in dagaalkaasi u socdo. waa gartay. warbaahinta Mareykanka marka laga tago iyo tan reer galbeedka dayna u imaano, waxaa la leeyahay dagaalka waxaa ku gacan sarreysa Iiraan. marka arrimahaani hadda socdaba Iiraan bay dhiirigelinayaan baa la leeyahay. marka maxay ku fasirayaan arrinkan? wargeyska la yiraahdo The Guardian ayaa waxa uu tilmaamayaa kadib 4 toddobaad oo dagaal Mareykanka ay uga baxday lacag gaaraysa 40 bilyan in dowladda Mareykanka ay hadda noqotay in ay ka fog tahay in ay heshiis gali karto. Iiraan ayaa hadda waxa ay xiratay oo si buuxda gacanta ugu dhigtay marinkii Hormuz, waxayna carqaladaysay 95% maraakiibtii marayay, waxaana istaagay maalintii waxaa mari jiray 10 ilaa 13 milyan oo barmiil
oo ama fuusto oo saliida waxaana xaaladda hadda isu bedeshay in Iiraan marinka ay ka dhigto mid ay lacag ka qaado maraakiibta maraya waxayna sanadkii ka helaysaa hadday arrintaas u meel marto 80 bilyan oo dollar xaqiiqada dhalatay ayaa waxay tahay sidii uu hore ugu dhigay nin hore uga tirsanaan jiray ciidamada sirta ee waddanka Britain ee MI6 la yiraahdo Iiraan ayaa dagaalka ku gacan sareysa halka Mirav Sonzin waa ka tirsan hay'adda xasradaha caalamiga ah ee la yiraahdo ICG waxa uu leeyahay khaladkii ugu weynaa istiraatiijiyadeed ayaa dowladda Mareykanku samaysay cawaaqibka ka dhalanayana waxa uu yahay mid dhaqaalaha caalamka sameynaya kii ugu xumaa ilaa wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka waa gartay marka macnaheedu ma noqon kartaa iyadoo lagu jiro xaaladan jahwareerka iyo colaadda fursad inay noqotaa marka Iiraan inay samaysan karto nuclear oo ama si gudba looga faa'iideysan karaba xaaladahan imika socda dagaalkan iyo jahwareerkan isagoo taagan yahay ayaa waxaa soo baxaya jahwareer aad u weyn sida warsidaha Times oo lafaguridiisa ku qoray Iiraan hadda maxay doonaysaa in ay hub nuclear samaysato si ka weyn wixii ka horreeyay dagaalka taariikhda ayaa waxayna xusuusanaysaa sanadkii 2015 in Iiraan si ikhtiyaar ay u ogolaatay in taygelinta barnaamijkeeda ay u ahaado 3.67% oo keliya una ogolaato kormeerayaasha hay'adda faafreebta nuclearka ee IAEA inay sidee doonaan u kormeeraan xataa ciidamada sirta ee CIA-da iyo hay'addan qaramada midoobay IAEA warbixinadooda ayaa si wada jira isugu raacay in Iiraan aynan samaysanayn hub nuclear khabiirkan Takur la yiraahdo ayaa waxa uu leeyahay madaxweynihii hore ee waddanka Iiraan ayaa ku adkaystay in hubka nuclearka uu yahay hub si baahsan wax u gumaada arrintaasna islaamka ay mamnuuc ka tahay waxaadna moodaa in hubkaas nuclearka uu kala soocayn ciidan iyo dad rayid ah halka digniin lagu bixiyay in hogaankii diimeed ee waddanka Iiraan ay awood u leeyihiin in amniga qaranka ay xadeeyaan haddana waxaad moodaa ilaa ay hadda Iiraan inayna go'aansan inay hub nuclear samaysato laakiin Mareykanka dagaalkan markuu u qaaday waxay dhabaha u xaartay in wadamo kale ay hub nuclear isu diyaariyaan waa gartay waya gabagabadii marka warbixinta haddii dagaalkan ay noqon weydo Trump inuu ku guuleysto ama uu ka bixi waayo isagoo guul sheeganaya suurtagal ma tahay in uu u isticmaalo nuclear waxaa laga yaabaa dagaalkan in uu ku dardargeliyo xukuumadda Iiraan iyo bulshada Iiraan oo awalba fadwo diimeed iyo istiraatiijiyad ahaanba ku qeexayay nuclearka inuu xaraam yahay in hadda ay ka doorbidayaan sidii waddankooda ay ku samata bixin lahaayeen khiyaaraadka diblomaasiyadeed oo dhan ayaa hadda gabagaba jooga iyadoo waqtiga kama dambaysta ah ee madaxweynaha Mareykanka uu qabtay uu si dhaqso ah ku dhammaan doono ayaa wargeyska The Guardian waxa uu soo xiganayaa nin diblomaasi oo arrimahan aad ula socda kana cabsanaya haddii Trump uu dagaalkan ku guuleysan waayo in laga yaabo inuu hub nuclear isticmaalo ololaha military ee loogu talagalay in looga hor istaago hal wadan oo Iiraan ah inuu hub nuclear oo hal bama samaysto ayaa hadda waxay dhabaha u furtay albaabadana u ballaqday khiyaaraad khatar ah oo horseedi kara in duqeyn dowladda Mareykanka ee nuclear ay qaado inay dhiciso inay kiciso xilli caalamka oo dhan uu ku tartami doono in nuclear la samaysto si wadan walba isu